halkan maanta waxaan mahad ballaaran uga celinaynaa dhammaan gobolka Awdal shantii cisheenu joognay iyo markii aan nimid ilaa markii laga soo bilaabo ilaa maanta aan joogno sida mugga iyo miisaan kale ee kalgacal kale ee gobolka lagu soo dhaweeyay aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa marlaba waxaan aad iyo aad uga mahadnaqaynaa madasha maanta ah beesha go'aansatay inay xisbiga kulmiye xuduudoodii iyo caqligoodii iyo xooggoodii dhaqaalada ku soo kordhiyaan ee weliba kuwa kala shirka waa loo qaban jiray xisbiga ku soo biiray yidhi shirkaan annagaa qabsanayna marti baa noo ahaanaysaa ee kaalada loo guddooma taasoo ku cusub halka siyaasadka Soomaaliya aad iyo aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa سودان كبيش عبر عرف بيرها عبر عرفان وتيجي بيرها ثاني بيرها عبر عرفان سودان عبد الرحمن سيدا كحال قاضي بيسان وهذا الكوبنا بين وأنصرنا شركة وارفور وارحلة وكان كنترول أما كان حسب كشينا كلية وابدا سيدا ركب رويني ما تقضي أباك شدية أباك كلية إن شاء الله وتكيل كوتا وحيل المركب وفنا هذا القدر ما أنت كبر الجيل ماليو وحنقول أحسن هاي رجع حزبك عها هاي الورقة سيد أيوة جان حزبك يوحى عن كشتين يا أباك ينسى وحيو أيوة يقولي هذا الدار سلطان ما أنت واحد ليس بيرها عبر عرفان وقضية تورس هذا الشيء وحكي يا لون كاسبينا أو ضرورة رمضيسان وحكي كاسبينا سومالي لا ضرورة رمضيسان سلطان أول وحتى تلاس أنا نوض بضطرتين وحكي كاربنا بدأت هالك أتكبر وضي inaad geysa la saaro oo geysa ceerigaabo oo Soomaaliland oo dhan mida ay ku wada faano oo wada kulmiya waayo talaabada wanaagsan meeshii laga bilaabo ay baa si kulmiya go'aanka wanaagsan madriya oo tulisa beeraha inta leh ee maanta go'aan ku biloobay waa talaabo wanaagsan iyo talaabo cad oo Soomaaliland oo dhan bilow noqon karta gobol راسي مريكا waxaan ku ducaynaa Suudaanka jireed joogo ahaw talaafi calaad keentana Soomaaliya gaarsi kulmiye hadaan nahayna aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa maanta sheegayna program iyo wax ka mid hal qodob baan ku darayaa bariyan waxa ka socota magaalada Muqdisho doorasho waxa la yaab leh waxa la baarlamaan iyo aqal baan dooranay Soomaaliya hadda jeer waxaan maqalnaa iyadoo la leeyahay dowladda waqooyi حتى Soomaaliland ma yiraahdo dadka la magacaabaya wadada Soomaaliland waxaan u sheegaynaa walaalada iyo caalamka iyo geeska gardarrada qaawan ee nimanka Muqdisho jooga Soomaaliland ku kacaya ee nin boor wax ku dhashay ayay naga magacaabay ee nin ergaabo ku dhashay ayay naga magacaabay ee mid Hargeysa ku dhashay ayay wax laga magacaabay Muqdisho wardana loo taliyo horena kuwii ka horeeyay u diiday taa ay soo gooyaan annagu qaran walaaladii oo lixdii baan nahay maanta ayna wax heshiino mooyaan isku fargelin karo hadda deeweydaan guriga aad soo fargelaysaan ee 22 sano owdaha jaarka iyo kuwa caalamka iyo waxaan sheegay inay naasaan nabad ku ahaanay in la isfargelin doono oo dhan waxaan weyn maanta Soomaaliya marka la yiraahdo Somaliland iyo Soomaaliya dhibaato in uu filan way qaba ra'yigaygu waxa weeye inay nolosha maanta ay joogto tuqaanta carruurteena iyo dadkeena u saabino inay dhibaatooyinka ka baxday inay nolosha kor qaadahay wali ma takaasana walaal waxa ku fogeeyay farqalada iyo faragelinta iyo dhafoortaamka Soomaaliland taasna tula aqbal kaliya maaha
وأمر يجي عالم كل شيء نادر بالسؤال أنت هذا يوم تنتهي والسلام